safiirka midowga Yurub Nicholas Barlinga oo magaalada Hargeysa habeenkii xalay ahaa kaga qayb galay madal lagaga doodayay doorka dhalinyaradu ay ku leeyihiin doorashooyinka lagu wado inay ka qabsoomaan Somaliland. Nicholas Barlinga oo halkaasi ka jeediyay dood iyo hadallo isku jira kaftan waxa uu sheegay in la yaab ay ku noqotay in xildhibaanada laga soo doorto labada gole ee Somaliland in aanay ku noqon deegaanadii laga soo doortay isla markaasina aanay la xisaabtamin cidii soo dooratay waxaana uu eedaasi tusha uu ka saaray dadkii soo doortay oo uu sheegay in aanay la xisaabtamin or an actor of conflict. su-aasha labaadna waxa weeyaan adigoo dhalinyaro ah naftaada inaad isweydiisid ma waxaad noqonaysaa qof ka qayb qaata isbeddelka mise qof ka qayb qaata khilaaf. If you want to be an actor for change, allow me to give you some advices. First, register to vote, encourage your friends to do the same, and take your responsibility. haddaad tahay qof doonaya inuu ka qayb qaato isbeddelka taladaan ku siinaya waxa weeyaan isdiiwaangeli ka qayb qaado diiwaangelinta codbixiyaasha saaxiibada iyo dadka ugu dhowna ku dhiirigeli inay isdiiwaangeliyaan. The second thing is, please do not forget your young colleagues in rural areas. We know what is happening in Argate or in Berbera or in Burao, but please, we need to spread the messages also and assist the young people in rural areas. talabaadna waxa weeyaan in aanad ku koobin saaxiibadaada jooga magaalooyinka waaweyn sida Hargeysa, Burco, Berbera, Boorama laakiinse fariinta aynu gaadhsiino dhalinyarada iyo saaxiibadaada kale ee jooga goobahan magaalooyinka waaweyn sida degmooyinka, tuulooyinka iyo baadiyaha. The third thing is, now that the electoral law has been passed by Parliament, you need to remind the political parties that they are the main drivers and they should increase the transparency in the selection of candidates and increase the quality of these candidates. qodobka kale ee saddexaad waxa weeyaan maadaama oo la ansixiyay xeerkii doorashada xeerkaasi wuxuu dhigaya waajibaad iyo shuruudo waa inaad ogaataan in xisbiyadu ay hogaaminayaan nidaamka siyaasiga ah kula xisaabtama xisbiyada in dadka ay soo xulayaan ee u sharaxan doorashooyinka ay ku soo xulaan tayo dadkaas inay tayo lahaadaan oo dad tayo ay noqdaan. And the last thing is that please remind the candidates that what you are looking for is just to accomplish, to get your aspiration for a better life, to run, to have a job, to get education, to raise your family. So they should know that candidates, they should represent the general interest, your aspirations for a better life. qodobka ugu dambeeyana waxa weeyaan dadka musharaxiinta inaad ogeysiisid inay ka turjumaan rajadaada shakhsi ahaan rajadaada ah inaad shaqo heshid inaad nolol samaysatid in aad kaalin nolosha ka gashid marka qofka musharaxa ah inuu ogaado cidda uu matalaya inay adiga tahay xuquuqdaadana inuu ka turjumayo iyo rajada mustaqbalka aad leedahay. Cabdiraxmaan Ordogan, Naba TV, Hargeysa.